أحمد جوليد خضر ورئيس وزراء كحينك عصبة الصومالية وحو حبينك أها جد دورشوين كالصوماليان لابد كون يستقالك وحو نقطة لتليها شرعية جد دورشوين كالصوماليان إي أوبريشن دايركتوركا sidoo kalena hay'adda UNDP ayuu kala shaqeeyay sharciga dhanka waxbarashada sharciga ayuu ka bartay jaamacad ku taala Ethiopia isagoo masterna ka qaatay Oil Protection Agreement waxa uu sidoo kale noqday madaxa kulliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa hadda waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyaa jaamacadda UN ee Peace University Addis Ababa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waa wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxa uu sheekh ku dhashay September 23 sanadkii 1955 waxaana dhalay madaxweynihii hore Puntland Maxamed Cabdi Xaashi dhanka waxbarashada waxa uu haystaa PhD xagga dhaqaalaha ah ee jaamacadda George Mason University masterkana John Hopkins University waxa uu dhaqaalaha ka bartay Peace University in New York waxa uu haystaa shahaadada loo yaqaan Public Accountant oo falanqeeya xagga dhaqaalaha ah waxa uu aqoon fiican u leeyahay bangiyada sanadihii 1989 ilaa 2004 waxa uu ka shaqeynayay bangiga adduunka waxa uu maareeyay lacag ka badan 115 bilyan Dr. Maryam Qaasim Ahmed wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxay dhalatay sanadkii 1959 waxay ku dhalatay baar dheere dhanka waxbarashada 1979 ilaa 1983 jaamacadda ummadda kulliyadda dawada iyo qalliinka ay ka baxday 1986 seminar jarmalka ee Berlin University intii Holland ay joogtayna waxay dhigatay Catholic University November 18 2010 xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maryam Qaasim Axmed waxa loo magacaabay wasiirka arrimaha haweenka iyo qoyska 2012 waxay ka tirsanayd madaxda xisbiga Tayo November 4 2012 xukuumadda ra'iisul wasaare Shirdoon waxay Maryam Qaasim loo magacaabay wasiirka horumarinta arrimaha bulshada waxay la shaqeysay hay'adaha ay kamid yihiin WHO iyo UNICEF Abdi Faarax Siciid Juxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta master ayuu ka qaatay culumta saxaafadda jaamacad ku taala Jamhuuriyadda Czech Republic waxa uu noqday mulkiilaha idaacadda Halgan oo ku taala Ohio kana warranta arrimaha bulshada Community Radio Juxa waxa uu noqday wasiirka waxbarashada Puntland 5 sano oo madaxweyne ka ahaa Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole waxa uu muddadaasi suura geliyay mideynta imtixaanaadka dugsiyada Puntland iyo mideynta waxbarashada dugsiyada Puntland hay'adda Umbus ayuu kala shaqeynayay arrimaha siyaasadda Puntland ka hor intaan loo bixin magaca Unsum sidoo kale wuxuu noqday xiriiryaha waxbarashada Soomaaliya iyo midowga Yurub wuxuu qoray buug lagu magacaabo Qabi iyo Qursi oo kaga hadlayo arrimaha takoorka bulshada dhexdeeda ay isku sameeyso Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda intii u dhaxaysay sanadihii 1955 ilaa 1956 ayuu ku dhashay degmada Gabiley shahaadooyinka MBA iyo PhD ayuu ka diyaariyay jaamacadda Wisconsin ee dalka Mareykanka Cabdiraxmaan Beyle shaqooyinka soo qabtay waxa kamid ahaa wuxuu noqday safiirka dalka Hindiya u fadhiya Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxay dhibaan ka tirsan baarlamaanka tobnaad Mr. Beyle waxa uu noqday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka tobnaad iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliya Ambassador Yusuf Garaad Cumar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu ku dhashay Muqdisho 1960 waxa uu ku hadlaa luqadaha Ingiriiska Faransiiska muddadii u dhaxaysay 1992 ilaa 2012 wuxuu ka shaqeyn jiray idaacadda BBC isagoo 13 sano ka ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga hore 1991 waxa uu la shaqeynayay hay'adda Laanqeyrta Cas halka uu wariye ka ahaa Radio Muqdisho sanadihii 1983 ilaa 1990 dhanka waxbarashada 2004-2005 waxa uu ka dhigtay Global Master of Art Program jaamacadda Tufts University waxa kaloo Bachelor of Art ka dhigtay jaamacadda Somali National University ee magaalada Muqdisho 2014 wixii ka dambeeyay waxa uu la taliyay waxa madaxweyne Xasan Sheekh isagoo sidoo kale hay'adda caalamiga ah la taliyay oo noqday sanadkii hore waxa loo magacaabay safiirka Soomaaliya ee UN-ta haddana waxa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda xildhibaan Maryan Aweys Jaama wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda waxay muddo ka shaqeyn jirtay hay'adda UNHCR ilaa markii dambe uu ra'iisul wasaare Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu magacaabay wasiirka haweenka iyo qoyska baarlamaankii sagaalaad waxay ku jirtay xubnihii ugu firfircoonaa iyadoo madax ka noqotay guddida haweenka iyo xuquuqul insaanka aqoonteed waa heer jaamacadeed waxay ku hadashaa 4 luqadood oo kale kamid yihiin Kiswahili iyo Ingiriiska xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan wasiirka xanaanada xoolaha sanadka 1981 ayuu ku dhashay degmada Jamaame Jubbada Hoose waxbarashada dugsiga waxa uu ku qaatay Jubbada Hoose iyo Muqdisho
noloshiisa badankeeda waxa uu ku qaatay dalka Qatar oo waxbarashada ka sii waday ilaa heer jaamacadeed. waxa uu bartay cilmiga engineering-ka. waa ganacsade suuqa bakaaraha ku leh ganacsiyo lagu iibiyo qalabka electronics-ka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka tobnaad waxaana hadda loo doortay wasiirka xanaanada xoolaha. Khadre Axmed Ducaale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha 2005 ilaa hadda waxay la taliye u ahayd wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah. 2014 ilaa 2015 waxay la taliye ka ahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyadoo la shaqaysay hay'adaha African Union, European Union, UNHCR, UNDP, AMISOM. sanadkii 2013 waxay ahayd madaxa shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka Marwafo. 2005 ilaa 2012 waxay ka shaqaynaysay jaamacad ku taala dalka Qatar. xagga aqoonta waxay shahaadada Master of Art ka haysataa International Education ee jaamacadda New York. Bachelor of Science ay ka diyaarisay Business Studies and Office Administration ee State University College of Bafo. Dr. Fawziya Abikar Noor wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay ku dhalatay Jowhar sanadkii 1960. waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare waxay ku qaadatay magaalada Muqdisho iyadoo ka baxday dugsiga sare Banaadir. waxbarashada jaamacadeed waxa ay ka qalin jabisay kulliyadda sharciga jaamacadda ummadda sanadkii 1985. dhanka khibradaha shaqada muddo waxay ka shaqaynaysay jaamacadda Talyaaniga 4 sano u dambeeyayna waxay joogtay Nairobi iyadoo oo la shaqaynaysay hay'adda qaramada midoobay ee WHO. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso waa wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo aqoon-yahan haysta shahaadada masterka. muddadii 9 sano ahayd ee u dambeysay waxa uu ka shaqaynayay dalka xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay wasiirka lacagta, wasiirka warfaafinta, la taliye sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo afayeenka madaxtooyada dawladda federaalka Soomaaliya. Injineer Yariiso waxa uu ka mid ahaa qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka UK. wuxuu xubin firfircoon ka ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan isagoo muddo 10 sano ahna dawladda hoose magaalada London uu ka soo shaqeeyay heer uu agaasim ka gaaray. hadda waxa loo magacaabay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. Deeqa Yaasin Xaaji Yuusuf wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka in ka badan 20 sano ayay ku noolay dalka Talyaaniga oo ay wax ku baratay. waxay aasaastay hay'adda IIDA oo ka shaqeysa arrimaha xuquuqda haweenka. doorashadii dalka ka dhacday waxay ka mid ahayd guddiga doorashooyinka dadban. waxay ahayd xubinta gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal. xildhibaan Siciid Xuseen Ciid wasiirka beeraha. Siciid waxa uu dhashay 1973 waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyay American International Open University ee Qaahira, India ayuu 2 master ka diyaariyay. shaqada waxa ugu muhiimsanaa 2014 ilaa 2016 waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha. waxa kale oo muddo uu la shaqaynayay rugaha ganacsiga dalka sida Puntland. waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka tobnaad. Injineer Cabdilcanshuur Xasan wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. waxa uu master ka haystaa cilmiga injineernimada dawladdii Maxamed Siyaad Barre. isla cilmigaasi ayuu ku shaqeeyay 3 sano u dambeeyay. waxa uu madax ka ahaa xaruniisa hoos tagta oo lagu dhaqan celiyay maleeshiyaadka. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. Buula Burde ayuu ku dhashay sanadkii 1968. waxa uu jaamacadda Oslo ka diyaariyay xisaabaadka iyo chemistry-ga. waxa uu diblooma sare ka qaatay waxbarashada. muddadii u dambeysay waxa uu ka shaqaynayay 2007 UNICEF, 2009 ilaa 2011 NRC oo ka maamulaha xagga waxbarashada. 2011 ilaa 2013 waxa uu dhadhaab kala shaqayn jiray waxbarashada hay'adda UNHCR. 2013 ilaa 2015 waxa wasaaradda waxbarashada la taliye kala ahaa dhanka waxbarashada. waxa kale oo uu ka shaqaynayay koonfurta Suudaan iyo Ciraaq oo kala shaqayn jiray UNESCO iyo UNICEF. Xasan Xuseen Xaaji wasiirka cadaaladda waa abukaate. wuxuu la soo shaqeeyay guddiga dastuurka xilligii Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. kusimaha guddidaasi ayuu noqday. Dr. Imaan Cabdullaahi Cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta. shahaadada masterka ayuu ka diyaariyay maamulka iyo maareynta dalka Canada. muddo dheer ayuu qurbajoog ahaa. mar dhow ayuu dalka soo laabtay. waxaanu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka. Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirka gaashaandhigga. noloshiisa waxaa lagu xusuustaa NGO-yada gobolada Bay iyo Bokool. hay'adaha ay ka mid yihiin Care International, WFP iyo NRC ayuu sidoo kale la shaqeeyay. maamulka koonfur galbeed ee Shariif Xasan ayaa 2015 u magacaabay gudoomiyaha gobolka Bay. Cabbaas Cabdullaahi Siraaji wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska. waxa uu dhashay sanadkii 1986. in ka badan 20 sano waxa uu ku noolaa xeryaha qaxoontiga ee Kenya.
xerada ifo ayuu uga baxay dugsiga sare. shahaadada koowaad waxa uu ka diyaariyey cilmiga kombiyuutarka jaamacadda Nairobi dalka Kenya, waxaanu ka mid noqday xildhibaanadii lagu soo doortay Kismaayo. injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka batroolka iyo macdanta, sanadkii 1962